annagu horta gadood ciidamada booliska ay wada sameeyeen galmudug oo dhan ma jirto degmada Cadaado ayaa laga sheegayaa oogaa ciidamadu inay buuq sameeyeen ayadana markaa saraakiishii wada hadalnay waxaa la sheegay askar corruption wada mooyaane askar toos inaysan ahayn saddex booliska waxaa bixiyay mushaarkiisa UNDP laba qaybood iyo marka boolisku qayb waxa weeye qaybtii hore oo dawladii labada kun iyo lixdii lasoo tababaray carmo meesha lagu tababaray iyo qayb dambe Djibouti iyo qayb hadda la tababaray boolisyintii dambe markuu boolisyintii dambe ba mushaar la'aan ahaa ayaguna mushaarkooda wuxuu ku xirnaa ayaan dhawto waxa laga qaybiyay mid wax ka qaaday farii iyo akoonno lambar u samaysay in loo bilaabo mushaarkii hadii ilaa raal ka dhigo shan labaad ugu dambeyn Maarso baa qorsho ahaa marka booliska garaamkiisana waan siinaa anagu mushaarkan hadii ilaa raal ka dhigo in bixisa qorsho ahaa welina UNDP jawaab kama helin mid labaad oo cilada ugu weyn waxa weeye saad ogtahay ba wadanku 4 bilood ma lahan taliyay booliska qaranka oo weli dawladdan magacaabin taana caqabadaha keenaya in maartay mushaaraadka ciidanka waxanimo bay kamid tahay markaan ka soo tagno taliyaha booliska hadda aan magacawneen booliska ku simu leeyahay oo hawshii waa ay socotaa ciidanka oo dhan miyaan mushaar qaadan mise ciidamo gaar ah sida ku hadda aad sheegayso dib laga soo tababaray ciidanka laba qaybood qayb mushaar way qaataa dib laga soo tababarayna weli mushaarkii uma bilaaban annaga garaamka sii siinaa laakiin dawladdu UNDP baa hawsha la wareegtay in garaamkii mushaarka u bilowda baa qorsho ahaa bishaan ama ku xigto Maarso welina qorshihii UNDP xaggeedii jira marka ayadaan ka dhowraynaa annagu ciidanka garaamkiisii ka saarnay hadaan galmudug sababta galmudug dhaqaale badan ma haysto ciidankana sidii loo qoray mushaarkii weli process buu ku jiray hawshiisii hawshii hadda UNDP un baa jawaabteeda sugaya hadii la raalka waan la helayaa mushaarka insha Allah saarjeedino wasiir anagu waxaan la xiriirnay deegaano kala duwan saraakiisha ku sugan dhamaantood waxay isku mid ka yihiin in aysan wax mushaar qaadan oo gadoodku ay ka midaysan yihiin taas ma been abuur ayaad ku tilmaamaysaa anigu waxaan goobjoog ka ahaa bishaan hadda aan ku jirno shanteedii iyo afarteedii la xasuusto in mushaarkii booliskii carmo iyo kii ku xigayba inuu mushaar u yimid kii cusbaa hadda keliya oo awba aan ogeyn in mushaar ka maqan yahay keliya mushaarkiisu uu maqan yahay booliska oo dhan mushaar ma wada qaadan marka ma ahan booliska garaamkii waan siinaa booliskaas cusub oo la qorayna process buu galay hawshiisii UNDP baana ugu maqan hawshaas inay hadii la raal ka dhigo bishaan ilaa bisha kale bilowgeed inay u bilowdeen warjeedina adinku wasaaradda amniga tihiin ciidamaduna waa kuwii ammaanka mas'uulka ka ahaa marka laga soo tago dadaalo UNDP ay wado iyo hay'adaha qaramada midowga ka tirsan maxaa adinka arintan aad ugu taabagasheen si wax looga qabto maadaama ciidanku ay mas'uuliyad xoog la saaran tahay booliska dhan mushaarkiisa Soomaaliya waxa bixisa marka anaga kan wasaaradda weli anagu cashuurtii bariga iyo tii ganacsi weli cashuuraadkii ma qaadin oo galmudug hadda taana heshiis galmudug la sameeyay hadii la raal ka dhigo heshiiskan marka la dhamaystirmo dhusmareeb ay maamulku u dago waxaan bilaabi doonaa cashuur midaysan insha Allah waxaan rajaynaynaa in laga baahi bixi doono hay'adaha iyo dhammaan meelaha kale waxa laga soo galaa waa tahay marka hadalka ugu dambeyn aad jeedinayso ku aadan ciidamadan gadoodsan saacadii la soo dhaafay soo ifbaxayay muxuu yahay maadaama wasaaradda amniga galmudug mas'uul ka tirsanata horta ciidamada galmudug oo gadoodsan idinka saxaafadda laftigiina inaad maartay hadalada aad sheegaysaan aad u sheegaraysaan baa fiican ciidamada galmudug oo gadoodsan ma jiraan waxaa dhacday saraakiil hadda waad leeyihiin anigu sargaal hadlayna maqal laakiin de askar waa hadli kartaa dhowr askari oo dad maartay corruption iska wada waa dhici karaan ciidankan laba qaybood weeye qayb mushaarka way heshaa qaybna mushaarkiiba processkiisa hadda ugu maqan yihiin garaamkiina annagaa siinaan ku yidhi marka gadood ciidan oo hadda anigu idaacadahan baan ka maqalnaa ayaan ognahay annaga wasaarad ahaan ma jiro cadaada waxa laga sheegaa liyi cadaada laftiga waan xaqiijinay dhowr askar dhowr hadda idaacadaha iska wareysateen oo ka hadashay haddii hadda la helo ciidanka dhamagoysa